labaatankii sano u dambeeyay magaalooyinka deegaanka ayaan helin mudnaantii ay lahaayeen taas oo horseetay dib u dhac ballaaran. haddaba si loo helo magaalooyin horumarsan oo la jaan qaada magaalooyinka kale ee deegaanada dalka waxa uu xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha deegaanka Soomaalida uu ku howlan yahay waqtiyadii dambe kor u qaadida tayada adeegyada kala duwan ay bixiyaan magaalooyinka deegaanada iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaale. xafiiska oo si dardargelinaya howlahaasna waxa uu maanta tababar ugu qabtay magaalada Jigjiga hogaaminta gobolada degmooyinka iyo magaalooyinka dowladaha hoose ee deegaanka Soomaalida. tababarkan ayaana loogu leeyahay sidii faham buuxa looga soo leeyahay hogaaminta siyaasadda iyo jooyinka lagu horumarinayo magaalooyinka iyo doodanka kalena ay barbar socoto soo bandhigida qaab dhismeed cusub oo lagu talagalay in lagu horumariyo. darteed xafiiskuna inuu dabagalo oo isla xisaabtanka xaqiijiyo ayaa loo baahan yahay. inaguna sidoo kale mas'uuliyiinta waxaan arkayaa heer gobol iyo heer degmiyo dawladda hoose intaba way joogaan. nidaamyo kala duwan in la dhigo, shuruudo kala duwan in la dhigo, kuwa in lagu shaqeeyo, qorshe in la lahaado, markasta la isla xisaabtamo, waxqabadkeena aanu qiimeeyno joogtayno waliba ayaa loo baahan yahay. kiisina wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha deegaanka Soomaalida Mudane Cabdiraxmaan Ciid Daahir ayaa sheegay in xafiisku diyaar u yahay inuu ka taageero dowladaha hoose deegaanka horumarinta adeegyada kala duwan ay siiyaan bulshada. qorshaha isbedelka ee waddanka la rabo in wax laga bedelay barwaaqo lagu gaarsiiyo meesha uu rabo in xudunta iyo xarunta ay u noqoto wax soo saarka iyo barwaaqada magaalooyinka. nolosha bini'aadamku markay isbedesho magaalooyinka isku bedelaysaa. qofku weligiiba xoolo dhaqato iyo beeraley ma ahaanay. wax soo saarku markuu kor u kaco in magaalada loo soo wareego warshado loo wareegaa la rabaa. warshadayntii waxa ku imanaysaa baadiyaha ma waa magaalada. wax soo saarkii beeraha iyo xoolaha wixii wax lagaga bedelay qiimaha uu leeyahay waxaasi value addition loogu sameeyay magaalada weeye. marka magaalooyinkeennii haddayna intaan gacmaha isqabsana ka wada shaqeyn meel aynu gaarina haba yaraatay ma jirto. annaguna xafiis ahaan waxaan 100% idin ballan qaadanaa waxa la wixii taageera dhinaca farsamada waan idinka caawin karnaa. qorshaha hadday noqoto, nidaaminta dhulka hadday noqoto, qashinka hadday noqoto, annagoon xeradii gowrac idin dhisi karin laakiin in nidaamka gowraca la nidaamiyo 100% isagana waan idin kala shaqeyn karnaa hadii Ilaahay yiraahdo. marka waxaan rabaa idinka dhinaciina inka go'aanaashiin loo baahnaa aad la timaadeen oo inuu aragno maamulka rabada magaaladiisa in waxyaabahan aan sheegayo in wax laga qabto. ugu dambeyntii tababarkan oo socon doona muddo 2 cisho ee la rajaynayaa in wax weyn ku soo kordhi doono fahanka hanaanka dib u habeynta dowladaha hoose iyo kor u qaadida horumarinta kaabayaasha dhaqaale.